ayaa abaabulka dhalinyarada ee xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac oo maanta mar uu la hadlayay qaar kamid ah warbaahinta ayaa waxa uu fariin u diray komishanka doorashooyinka qaranka sidoo kalena waxa uu ku eedeeyay inay ku yareeyeen goobooyinka la dhigayo diiwaangelinta qadashada kaarka goobaha ku yaala gudaha magaalada Boorama sidoo kalena waxa uu fariin u diray bulshada reer Boorama oo ugu dhiirigeliyay inay qaataan kaarkaasi waxaana uu yiri socodka gobolka diiwaangelintii codbixiyaasha waxa jira khaladaad waaweyn oo aanay diiwaangelintaasi lahayn aanay gobolka taabagal aanay noqonin baa jirta gaar ahaan marka laga hadlayo degmada Boorama magaalada gudaheega sidaynu ka warqabno waxa weeyaan magaalada gudaheega waxa la dhigay 12 goobood oo kaliya taa la dhigay waynu ognahay 12 ka goobood magaalada iyadoo markeygii horeba ay goobuhu ku yaraayeen oo la leeyahay magaalada 1997 goodihii dastuurka loogu codeeyay ayaa ilaa maanta ku koobantay magaalada inta in leeg balaaratay ee population-keegu uu boqolaamaynta ayaa la yiri goobihii 97 iyagoo ay qolada tan imika diiwaangelintuna ay si yarasoo 12 goobood kaliya ka dhigeen halka imika hanuunintaynu joogno ilaa dugsigii Shacab Jawhar goobo ma dhaxayso shacabkii waxay ku niyad jabeen ninka jooga Shacab Jawhar ama xaafada jooga buurta hoosteedu ma soo luqoyn karo halkan ma iman karo halkan markuu yimaadana waa buuxa maxay danayaan faylkii waa buuxayo leenkii saasa loo tuban yahay waxa weey komishanka qaranka waxaan leenahay farahoosaashinta ka daaya waxaan leenahay qaata khaladaadkiino goobaha magaaladu waxay in markaad qaybinaysaan qaab maabin oo fiican oo magaalada isku dheelitiran tahay in ay qaybisaan wixii aad isku soo celiseen ay meelaha ku habboonaayeen la geeyo la dhiga reer Boorama waxa leeyahay waxa weeye war hadhow toole hadhowbe oo dhan leeyahay doo burdahay war maanta weey maalintii tartanka waa maanta maalintii dadku ay xaqooga goosanayeen waa maanta maalintii waxa weeyaan aad muujinaysay wixii gudaha ku jira weeyaan si taa loo muujiyo laba shay baa muhiim wixii dhiman komishanka ku dhiman laga bari maayo ha keeneen oo waxa weeyaan goobaha dadku si 4 maalmood waa dhacay 3 maalmood ka haray halkan iyo 7 maalmood haray komishanka qaranka waxa noo soo jeedinaynaa in 12 goobood oo kale loo kordhiyo magaalada loo soo jeedinaynaa si ay dadku fursad ugu helaan isdiiwaangeliyaan haddii u jeedaan ma ay tiriyo ay inta kaliya u jeedaan oo waan geynay ay ka tahay ka socon maysan leenahay shacabkana waxaan leenahay doonistiina ku shaqeeyo komishanka doonistiina ku shaqeeyo ma ahayna meelaha laga hadlo leeyahay gooyi baan ugu yar hal gaarsiin cid ay xusiisay si gaarana waxaan ugu soo jeedinayaa fariin guud dhalinyarada wax diiwaangelinaysa haddaanan daba joogin oo laga warhaynin way iska seexanayaan iska fadhiisanayaan waxa la soo sheegayaa in ay leeyihiin waqtiyada internetku uu go'an yahay iyo waxa internetka iyadoo bilaa internet dadka la diiwaangelin kara hadhow marka serverka lagu xidho internetka ayuu cidi dhabar registration sameeyay qabanaya geesta kalena waxa uu fariin u diray gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye ahna musharaxa u taagan jagada madaxweynenimo ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi oo uu ku eedeeyay inuu yiri arinta ceel sheekh waxa loo saari doonaa fariin waxaana uu yiri maalmo dhaweed waxa magaalada joogay gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxa laga soo sheegay inuu yiri ceel sheekh arinteedu uu ka hadlayo yiri maxkamad baan geeninaa Muuse Biixi waxa la Muuso arinta ceel sheekh arin salaadiini gashana maaha arrin maxkamadeedna ma waa arrin maamul arinta maamulna waxa bilowday oo goodiga dadka ku furtay dalka adigoo wasiirka arrimaha gudaha adoo waqtigaasi u fikirayay sidii qabiil ama reer dantiisa raadinay war Muuse malaha wali isma ogidin maanta waxaad u tartamaysaa musharax madaxweyne dalkan aad rabto inaad hogaamiso haddaad rabto dalkan inaad hogaamiso madaxweyne ka noqoto khaladaadka shalay sameysay dib u sax oo arrinta ceel sheekh waa arrin maamule cidii aad beenta u sheegtay shalay runta u sheeg maanta dib u fadhiisteen talabaad dawladda wadda ka jirta maxaad oranaysaa salaadiin haga shaarinta ceel sheekh ama maxkamad baan geenina waxa ku leenahay waa arrin maamul taasi laga aqbali maayo waliba adoo cod rabaad saa u hadlaysaayo dadka cod ka rabtay dhex fadhiyada maxkamad baan geenina taa cid ka aqbali mayso guntiga gabagabadii waxa uu fariin adag u diray gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe oo maalmihii ugu dambeysay qaar kamid ah warbaahinta u soo marinayay xisbiga mucaaridka ee wadani in ay olole siyaasadeed ka wadaan
gobolada galbeedka Soomaaliland waxaana uu ku eedeeyay in uuna waji u oolin magaalada Boorama Faysal Cali Waraabe oo sida hadalka uu dhigay waxaana uu yiri sidoo kale waxa bariyahan soo ducaynayna weerarey Faysal Cali Waraabe Faysal isagu jawaab kale oo baanay reer Boorama halkii kala taagan yihiin uu sugay wuxuu halka u gaarsiiyay wax kala ma inay wadani ba laga taageersan yahay Boorama ayuu Boorama u caayay ilaa maantana oo xisbiga daba socda Faysal waxa la wadagii bakaylo ugu arag dambeeyay wixii la weydiiyay bakaylo ma leeg yeelaayo haddii Boorama la tagay leeyaabo wadani ba ololin bule wadani ololama waday dadku isdiiwaan galiyay leeyahay kala qayb qaadanaya abaarta haysay iyo diiwaan galinta ay ku jiraan waa Shucayb Maxamed kaan Shucaybiga is telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Boorama